بسم الله. magacaygu waa deeqa aadan muuse deeqa afro. waxaan fiidiyowgan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin jimca. waan salaamayaa dhammaan inta fiidiyowgan daawata ama dhageysan doontaba. waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ahayd runtii. aan muddo badan ka fakarayay ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fakari jiray. waan dareensanahay runtii in kuwa badan oo idinka midow runtii aan ku yara aragti duwanahay, laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxa aan raba inaan soo gudbiyo taasaa aniga aad igu muhiima. sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeya waana lagu kala dambeeya. aniguse waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala maalintuu i oofsado, oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa, dadna waa iga horeyn doonaa, wax iska caadiya. laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle ii qodin, inaan lay aasin. arrintan waxaan ka fakarayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan. dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba, sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano. ilaahay subxaana watacaala ha ii kaso inaan si wanaagsan u barto insha allah. mana garan karo runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan. runtii anigu ma garan karo, hadda mid ii cabiran ma aha. dhinaca diinta weli kuma eegin, laakiin dhakhaatiir badan baan la xiriiray. arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa, waxaa ka macquulka ah, siday u dhici karto. waxa weeyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jabiyey, uu igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa dhuwa xabaalo, laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono. subxaan allah. marka aniga ahaanteyda fikraddeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaay aan diinta meesheeda loogu tegin, haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego. adduunka maxaa la yidhahdaay dhul la-aan kama jirto. adduunka dhul badan baa iska bannaan. dhul kasta waddan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo maydka la dhigi karo. meeshii laga aasi lahaa in maydka meeshaas la dhigo. waddan kasta dhulka ka bannaan in maydka la dhigo. haddi kadib xitaa haddaa fiirisi systemka ay wax u socdaan, waxa weeyaan dadka haddaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya, runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aad u tiro badan yihiin, oo runtii ay aad u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aad isu yaraan doono. khaasatan hadda waddamadan reer galbeedkaan joogno inuu aad wixii isu yaraan doonaan. halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aad u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib gareeyo meesha laga aasi lahaa. qaar baa oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay. runtii anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin waan caafimaad qabaa, laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa. marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unbay iga tahay, waana waxaan la huraynin, waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto, maadaaba waxaan anigu rabo weeyaan. anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkan usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan qusaysaa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu magaranaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa inkastoonan rajo aad u fiican aanan ka qabin oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyaday labada andhood bayga jeceshahay cimrigeeda ilaahay ha raajiyo hadda kahor maraan weydiiyaan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhinta in lay aaso waan ka dhaadhicin kari waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysidna waan ku asturayo awalna maxaa la yidhahdaa aan qofba mar farta ka xiri jiray walaalo dad iga nolol dambeysay u sheeg dadka qabriga nebcahay yaa lay gelin laakiin hadda maanta anaaba halkaan la soo fariistay ilaahayna taladan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahayo aan ku dhashay aan ku qurux badanahan joogo hoostiisa inaan lay gelin baan ilaahay ka barya dadka waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka xalaala soo kala yaacaan mar allaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxaasa usoo kala ordayo meelkiimadan la aqoono ma jarafidii bilaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaallaan waxaan dhihi lahaa naxariis darrada iska daaya qofku markuu dhinta xal kale hala keeno waxa weeyaan anigu hal gabar hadday imaydho is okay xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxaa layidhaha dadka isugu tagaanoo jiidaan dadka meydka ah anigu waxaasoo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda qabri igeliya maalinta yoomal qiyaamaan haystaa ma cafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deeskuud laakiin in aniga la xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo subxaan allah ilaahay baan ka magan gal ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada anigu khaasatan waxaa ninka qofka wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yiri dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda aan ka hadlayaa waa taas ma rabo in lay aaso dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oon dhulkayga aan dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca Ethiopia ah hooyo ku dhalatay aabahay booduu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhaahdaa hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da'a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro qofka iga dambeeya ayay arrintan qusaysaa aniga ilaa xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magan galay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo weligaya allah xitaa dhurwacyo yar oo korkayga saaran xitaa gacanteeda uma quureynaan ku dilo iska mid ah qof la xabaale wallaahi wixii dusheeda saaran cayayaan taan qof inaan dhaamaane inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo naxariistu ha idigu soo degto dadka yaan la xabaale xalkala hala keeno maxaan ku dhahay arrimaha diintii waxayaan la ila cararin yan markiiba la ila boodin arrinteedu saas weeye way caddahay waxa aan nabcaan ka hadlayaa waxa aan rabin baan sheegayaa ajriya xasanaad ka heli maysaan qofkii maanta iduuga oo maxaa la yidhahdaa ila soo kala wajiga ciid iga shuba ilaahay baan ka magan gal surkan ayaa mara la iga xiro waa nacbahay ajarna ka heli maysid haddaan idin sheegayaa maalintaa dhinto ajar iyo xasanaad toona ka heli maysaan aqranada haystaa dadi aastaana qabrigaas dhulkaas hay gelinina geedkaas halay saaro dhulka geed halay iga samro xaafadahaas halay geeyo meesha aan ku dhashay irjiciil al-azali mee carabta oran jirta xagga halay geeyo wayd ka codsanayaa qof kasta oo iga nolol dambeeyaana arrintaas qusaysaa video wuxuu qusayaa maanta halka la fadhiyaa qof kasta oo iga nolol dambeeya qof kasta oo iga nolol dambeeya oo aniga videogaas daawado kan daawan ma qusayso laakiin kii videogaas daawado oo aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arkow
maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay haddaba igu yidhahdaa deeqa adduunka kaale kusoo wareega xaggan iyo xaggan maalintaasaan wareeg u baahanahay maalintaas diyaaradaha lay saaro haligii meeshaas geed ha lay saaro halayga soo wado geedka korkiisa hala ii firaasho hala ii geeyo raka hala ii sameeyo wax geedaa lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabriga waa necbahayaan lay gelina